بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ما أنت بشو تحي صدحية طبعا بشي لحاد لبكوني لباتن وهنتي آد وصل دويني هالكنور نقص بوغدي وسيركي سارد وحبرشة وسير أحمد وسير كحيانكي إياه أجاسي بياشي وحها runtiina waxaan ku haynay shir muhiim ah oo lagaga hadlayo ku saabsan qaabkii imtixaanaadka aanu dardargelin lahayn ayay noogu soo yimaadeen madaxdu iyo sidaan u bayaamin lahayn imtixaanku waqtigu dhacayo imisa cisha la qaadaya goormu dhacaya waa xaaladiisu waa sidee iyo inaanu ka hadalno ardaydii yaa dambigeyga la ardaygii misalan iskuulka la bootiyay dembigii ma ardaygaa leh oo ciqaabta leh mise waalidkaa leh mise maamulahaa leh arrimo noocaasaan runtii ku diskas gareynaynay meesha iyo si hawshaa loogu tegi lahaa marka kolley iyadoo inoo soo gabagabayn doonaan madaxdu waxaan jecelahay ka guddoomiye xafiis imtixaan maadaama hawshan la wada ay imtixaan iyo qiimayn tahay inaan horta balbayaamino ardayda mugdi badan baa ardayda ku jira horta arday cabsi badan baa haysa waxaana cabsi ka haysaa macaali alwasiir aan rabaa in idiin sheego waxay ardaydu aaminsan yihiin in imtixaan adag laga qaadayo maadaama oo iyagoon waxba dhigan waxaasaa horta ardayda werwer badan ku haya horta ardayda waxaan u sheegaynaa qolada imtixaanaadka sameeya dee waa dad idinkoo kala ah oo wacyiga dalka la socda oo mas-uuliyiintiina waanu ognahay ardaydu wacyiga sanadkan siduu xaalku ahaa waanu ognahay siduu xaalku ahaa buu horta imtixaanku ku imanaya maaha waxaad ka fikiraysaan iyo cabsidan jirta iyo waxaana meesha yaallaa ma yaalla laakiin siduu wacyigu ahaa ayuunbaa runtii mataqaanaa laga fikiraya wasiirka iyo guddiga iyo qaranka oo dhaniba way ka arrintiina werwer badan ilaa heer madaxweyne ilaa guddiga qaranka ee covid-19 ardayda form 4 waa laga werwarayaa iyo ardayda jaamacadaha dhamaysanaysa waana la ogyahay inaydan sanadkan idinka luntay haddana tugba taagtiibuu rugmadaa wixii aad idinku teeramkii yaraa hore wixii aad dhigateen oo yaynu yar taabanaynaa mana aha imtixaan sidii loo geliyey uu ka qaabduwan yahay imtixaanka waxaa sanadkan loo qaadaya qaabkii baybariska ahaa ee sida shaqada qarankaoo kale waa la soo koobay waa imtixaanan soo koobnay gebigiinuba laba baybar baa ardaydu gelaysaa hal maalin baana la gelaya bal horta wada nafisa oo duceeya oo meesha waxaanaad ka gariiraysaan horta meesha ma yaallo ardayda qaar baa jaamacada dibaddaa tegayo cid inaga yeelaysaa ma jirto waanu qiimaynaye jaamacadda mataqaanaa heblaayo ha fadhiista ardaygaasi cidina inaga yeeli maysa caalamka kuwan ardayda u haysta in ama meelaha ka yidhaahda daawud xaasid xaasidnimo la yidhaha iyo waxaa la col lahay midna ma jirto xaasidnimo wax lama jiro waa carruurtayadii laakiin waxaan idinkan wax idiin doonaynaa waxa weeye Makerere University haddaad tegayso cid inaga yeelaysa haddaan wasiirku warqad kuu qoron anigu kuu qoro madaxweynuhu kuu qoro oo ku fadhiisinaysaa shahaadad la'aan ma jirto horta arday bal taa fahan waxaan imtixaankan formatka aanu kuugu samaynaynaa adaa wax lagula doonayaa imtixaanku wuxuu noqonayaa 7 oo maalin sabtiya maalintaasoo keliya imtixaanka la gelaya waa wenday beriga ka horna baybar baad gelaysaan oo 5 maado ah oo warqad keliya isku ah beriga ka bacdina waxaad gelaysaan 5 kale wuxuu waa labada baybar waa national service ku soo galeen ka kalaaskan waxa lagu fariisanayaa waa 6 arday waxaana cafuuftii waxa la wixii covid-19 ay ina faray oo dhan shuruudaheegina waa la fulinayaa wasaaradda waxbarashada mas'uuliyadda qaada xafiiska imtixaanaadka qaada annagana laga rabaa mid ciidan ka keena ma dhulan ka keena waxa weyn labada goor baa la gelay laba maalmoodna maaha laba gelinna maaha waligiina ha qaldamina gelin hore suuqa waxa ku jira qaar la gelin hore qaar baa la gelay gelinka dadka waxaas ba jiraan waa gelin hore in baa imtixaanka la gelaya waxa weeye bariga ka hor iyo bariga kadib imtixaanka waqtigiisa caadiga uu bilaabmaya 8 maado waliba waxa weeye warqad baybarka horena waa 2 saacadood baybarka dambana waa 2 saacadood waana waxa weey waa saasi tobankii maadana ku dhayihiin wax ku eriyana maaha meesha mobile la hala iman ardayo way waxa weey mobile la hala soo qaadan wax kale oo ka baxsan warqada imtixaankii lagu dhigay qalimaantaada waxaan hayna hala iman annagaba wax walba ku diyaarinay halkaas lagu diyaariyay wixii aad afka gashanaysay wixii aad gacmaha gashanaysay biyihii saabuuntii waxaasoo dhan waan ku annaga u diyaarinay haduu ilahay idmo waa imtixaan adigu aan la fakurnay soomaad garan si xeegan xeey ku noqonay kale ku nabadgeli lahayn horta imtixaanku waa ka waxaan intaan raacsanaya waxa jira ardaydeena had iyo jeer arday imtixaanaadka laga reebo
ardayda imtixaanaadka laga reebo dembiga inta badan waxa la maamulaha waxa uu wasiirkii maanta isla galay wasiir ku-xigeenka iyo guddigii meesha isku yimid oo dhan iyo kormeerkii guudba in maamulaha iyo waalidka lagu ciqaabo waliba anagu ciqaabta de waalid ciqaabi mayna waalidku waa lagu ganaaxiyay laakiin ciqaabta waxa yeelanayo xilkiisa ku waayi doona maamulaha ardayga fasal buu socdaa taxana waxbarasho leeyahay inuu ka talaabsada ka yeel maamulowde hadaad ka yeeshid dembigii adiga leh inuu ku dembi male iskuuladii saddexda sano ahaana way soo gabagaboobeen sanadkan baa ugu dambeeyay gebigoogaba iskuulkii macaarif laga caban jiray waa sanadkan 4 sano galaya runtii waxa kaloo inta raacin lahaa barnaamij kulli oo faahfaahin doona wasiirku baa jiray isaguna xafiiska imtixaanka gacanta ku hayo qiimeeyntuna waa halkeegii sidii baa loo wadaa iskuuladii dalka oo dhan way ka socotaa anadalka waxaan kaga tagayaa waa balardeeyo maalmahan oo dhan weydikii carabka aniga igu hayaan isku soo ducayno waan idin soo ducaynaya ilaahay idin gara idin dhib yareeyo imtixaanka idinkuna soo duceeyay in ilaahay dalkan xanuunka ka dul qaado qalinleef baatiin dabadidiin iyo kuwaan waxaan ka hadlayaa qalinleefka marka waxa weey waxaan leeyahay sida iyo khayr iyo duco iyo ijaabaan soo ogaano wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim maanta bisha June 13keedii madaxda wasaaradda waxbarashada agaasimo waaxidiyada waxay iyo shaqaaluhu waxay shirku galeen xafiiska imtixaanaadka oo lagu lafagurayay qaabka imtixaanka loo qaadayo iyo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo waqtiga imtixaanka iyo waxyaabaha ka reeban waxa kaloo lagu lafagurayay diiwaangelintii aynu nidhi waa lagu sameeyay ardayda waxa Daawud sidii ka muuqatay hadalkiisii doomiyaha xafiiska imtixaanaadka wuxuu horta aynu wada qaadanay Soomaaliland oo dhamay ay sanad ka qaadatay sanad dugsiyeedka soo socda in iskuulada Soomaaliland oo dhamay ay dhiganayaan manhajka qaranka ee wasaaradda waxbarashadu ay dejisay marka manhajka dib u eegis lagu sameynayana daneeyaasha waxbarashada oo dhamay ay ka qayb qaadan doonaan dib u eegistiisa ilaa inta dib u eegista lagu sameynayo sidii uu sharcigu sheegay 4 sano oo dugsi hoose 4 sano dugsi dhexe 4 sano oo secondary ayaa lagu wada shaqeynaya taas waa koow waana isku wada raaceen iskuuladii gaarka ah iyo kuwii guudna way isku raaceen arrinka waana isku waafaqsanahay insha Allah saasi inoogu hirgelisa waxa kale oo ku xiga sidii gudoomiyaha imtixaanada xafiiska imtixaanaadku sheegay oo mas'uul inooga hawsha taariikhdii ay noo sameeyeen ay ku dhacayso insha Allah sida aynu ku heshiinay imtixaan kasto la qaadaya imtixaanada la qaadaya 3 nooc baa ugu badan oo la kala yiraahdo achievement test aptitude test iyo standardized test ka koowaad waxa weeye heerka ardaygani inta in leeg buu bartay wixii ahayd inuu barto ka kalabaadna waxa weeye ardaygani waxa uu rabo inuu barto inta in leeg bay suuragal u tahay inuu barto ka ku xigaana waxa weeyaan ardaygan marka da'diisa la eego iyo meeshu ku dhashay iyo wuxuu soo bartay maskaxda lagu cabiraa ka marka kana inuu imika qaadanay la inaga qaadaya iskuulada laga qaadaya waa kii ahayd inta in leeg buu ardaygu bartay wixii ahayd inuu barto achievement testkuna wixii lagu dhigay inta in leeg baad baratay weey marka waxaan lagu dhigin cid ka dooni mayso halka waxa ku jira laakiin sidii mar walba lagu celiyo waxa ardayda ka mamnuuca in la soo qaato wax electroniga ama mobile ha noqdo ama saacad ha noqdo laptop ha noqdo wax electroniga hatta haduu qali yahay sidaada adigoo qalinkaaga caadiga sita wixii kale wasaaradda waxbarashada ku siinaysa waraaqii imtixaanka lagu galiyay afsaabkii la xidhanayay gacmo gashigii wasaaradda waxbarashada kula diyaara marka adigu inaad wax soo qaadataba maaha ardayga marka lagu qabto inuu soo qaatay sanadii hore waxa la sameeyay mobilka laga qaaday laakiin sanadkan shuruuduhu ka mid yahay warqad dikrota baa lagu soo saaray hadii aad jabiso imtixaankii waxaad jabisay shuruudihiisa waa laga saaraya imtixaankaaga waxba kama jiraan hadii telefoon lagu qabto mobile hadii lagu qabto adigoo wax qishaya hadii lagu qabto warqad lagu soo tuuray daaqad lagaaga soo tuuray hadii lagu arko adoo tiigsanaya hadii jeebkaaga gacmahaaga wax ku qortay hadii laga arko waxa soo dhan imtixaankaaga waxba kama jiraan imika ba ogaada arday talabaad waxa weeye waxa ka sii ciqaab badan qof mas'uul ah hadii la ogaado oo imtixaankaas sidii la yiri u maamul si aan hayno maamulaya qofkaana waxaanu sameeynaa hadii uu
dee dariiqa sharcigaa lala maraya hadduu shaqaale dowladeed yahayna waddada loo maro qof shaqaale dowladeeda oo dembi galay waa dembi ileen taasi ayaa lala maraya haddii aanu shaqaale dowladeed ahayna dembiga qof muwaadina oo aan shaqaale dowladeed ahayn waddada la mariya baa la marinaya laakiin labada kuu doonaha hadee wixii uu sharcigu ciqaab siiyo ayuu helayaa ta labaad waxa weeye waxaanu bilownay diiwaangelintii baynu bilownay diiwaangelinta ardayda oo ah in arday walba si loo qiimeeyo isla markaana loo siiyo number ama sumad uu ardaygaasi sito ilaa intuu wax baranayo heerku iminka jooga laga bilaabay ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo inta uu wax baranayo aynu u samayno waxaa laga doonayaa dhammaan dugsiyada guddoomiyaasha waxbarashada ee degmooyinka guddoomiyaasha waxbarashada ee gobolada iyo agaasimo waaxeedyada xafiisyada ay qusaysay wasaaradda waxbarashadu waa inay ku keenaan xogtaa ugu dambayn 20ka bish 6aad xogtaasina waa foomkii laydii soo diray 20ka bisha June oo bishan inuu ku jirnay imika taas waxa weeye 7 cisho kadib waa inuu cid kasta ku soo gudbisaa waxaanaynu qofka soo gudbin ay dhibaatooyin qabsadaan dee wuxuu la soo hadlayaa wasaaradda waxaynu samaynay call center 966 9 iyo 3 afar nabar buu ka koobayay shirkadda doonta ka soo wac uu ku soo dhacay wasaaradda waxbarashada marka taana ugu dambayn 20ka bisha waa in la keeno arday waliba waa inuu haysto ID number 20ka bisha iyo maxaan ku yiraahdaa iyo imtixaankii lagu qiimeynayay marka guddoomiyaasha gobolada waxaan mar labaad ku celinayaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka faraya iyo maamulayaasha dugsiyada in ay xilligaa loo qabtay ku soo gudbiyaan haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambayn daawud waa kii sheegay su'aalo badan baa nala weydiiyay imtixaan ku saabsan xafiiska imtixaanaadku sidii uu soo go'aamiyey wasaaradda waxbarashaduna ku raacday sektarka waxbarashaduna ay isku raaceen waxaa la qaadayaa maalin qura ayaa imtixaanka la qaadaya guddoomiyuhuna waa kii imika sheegay la yidhi imtixaanka maalinta qura la qaadayo 8daa la gelayaa marka 2 saacadood lagu jiro beberka koowaad oo 5 maado ka kooban ayaa break time la gelaya break time-ka marka laga soo noqdo ayaa haddana 5 maado kale la gelayaa iyagana 2 saacadood baa lagu jiraya dabeetana 12 iyo barhka maalinimaba waa lagu kala tegaya marka macallimiinta ka shaqeysa imtixaankaana hadda imikaba waa dignin waana wuxuu sheegis iyo waano waalidnimo iyo tii madaxdaba qofka lagu qabto ee wadadii imtixaanka la yidhi umar wadda aan ahayn umara hadhowto isagaa ka mas-uula wixii ku dhaca imtixaanku ma aha ciqaab ma aha dhib maaha ardayga waxaynu eegaynaa un balinu wixii bartay markaa qofka intuu qish u sahlo arday somaliland oo dhan been buu sheegay ardaygana been buu sheegay akhlaaqdiina wuu ka xumeeyey ardayga markaa dee u dul qaadan mayno qofka somaliland oo dhan been u sheegaya waalidkana been u sheegaya ee ardayaan boqol keenin odhanaya ardaygaagi boqol buu keenay waalidkina wuu farxayaa maanta oo dhan buu ilmihiis yaraa la boodboodaya waana been ilmi yaraa laftigiisa waxaad bartay akhlaaq xumo oo wixiis odhanaya hadhow sidaa darajo ku hel oo lacag sidaa ku hel oo nolosha sidaa ku maamul biis odhanaya dee dabeedna hadhow luquntu kildhi la gelayaa jeel buu gelayaa marka waxaan idinka codsanayaa ninka caruurteena sidaa ku samaynaya waalidkana u dul qaadan maayo wasaaradduna u dul qaadan mayso wabilaahi tawfiiq